بين استعان على أمور الدين والدين صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. وأن أدبان السلام يا جودهان ملاحظة يا خيارته يا بدوينها يا ضدك الكاك سبعين هذا أقول مركز روحان لا سنة كسنة كسيل هاي بش يبرواقها إنه جالسية كل عام وأنتم بخير. سو شيء بدنا سفر بان شقان وبحني أو دولة ديرسكا توبي كينيا سومر اللي يلا قيبة كلا دوان الله كل اللي يجري وحلا قال لي أنا جودان عريمها صومالية جارهان جودان عريمها أمري وجوال كي جارهان صومالية واي كم ذاهي يا جارهان شو بلام أقوم يمسنا هذا الله وحسنا وحياة بالمدرسة وضع الشقة إلا وكل اللي حتوك مركل ولا شيء كتير هذا يسقي بنكوش راي يا شركة إسماعيل الله وقوانا يسوع من الدلها جودان صواريدنا طلابة هراء وقادر هاي وعايز لا سفر هذه عن صوم الرأي إدى الله سوكر النبي سي قوله ويكسر لماذا إلهي بما هذا كلا سبحانه وتعالى النبض نقصه عليه وحال إلى جسوا يا وعليس يلا فضل بقى وعلوس بالليل وحنسوينا وين المرتي بدن صوالي بدن المرتي قادون سود وينه هي شركة أنا إلهي كبر لأنه سي قوله النبض قليها وكل ماذا dadkana guud ahaan waxaan leeyahay aan u diyaar garowna hawshaas sanadkan waxaan rajeynayaa Soomaalida inuu isbedel badan ka keeni doono ifafaalo fiican baa ka muuqanaya guud ahaan jawiga Soomaaliya waxaan is leeyahay inay yaraan doonaan colaadaha iyo dagaalada kale ee badan ee socda kuwan shabaabkuna insha Allah iska dhamaan doonaan aan ugu baaqayo guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo reer Jubbaland gaar ahaan in gacmaha la isqabsado من نماذا يولا لماذا لا شقيه عيد كستو اسقونسته ama wax dhaxmaraan wada hadal iyo ay ku dhameeyaan safgarad saas ay ku dhamaato ay waxaan dareemeynaa cid wale way isqoomi wax walba la isku qabsan karaa laakiin in laga wada hadlo halka si nabad ay wada hadal lagu raadiyaa ka fiican waan rajeynayaa sanadkan Soomaalida inuu taariikhda u gali doono hadii la yiraahdo waxaan ka rajeynayaa riyada iyo aamaasha shacabku inay xaqiiqowdo amniga xaqiisa iyo horumarka iyo maamulka suuban intaba aad baad u mahadsantiin waan idinka mahad celinayaa soo dhaweyntiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wallahi inta badan de Soomaalidu horta siyaalo kale wuxuu jiijiiday laakiin waxay ku saabsanaydun gaar ahaan shirkaan dhacaya iyo bal Soomaaliya iyo xaaladeeda iyo arinta amniga oo gaar ahaan dagaalkan hadda la qaadayo la yiraahdo Juba corridor ama hawlgalkan wabiga Juba ama Jubbaland oo filayo inuu hadda bishaan bilaabi doono hadii la yiraahdo hawlgalkaasi iyo balqaabkii uu ku socon lahaa iyo maamul wanaaga iyo amniga iyo sidii dawladuhu ay noogala qayb qaadan lahaayeen arintaas